waxaan rabaa inaan maxaan ku raahdaa say maanta wax u dhaceen inaan bal wax ka faafahiyo ma gartay marka walaal horta anagu akhbaarad macnaha soo gaaray maanta 4 saac markay tahay baa warbixintan soo gaartay inuu ninka la yiraahdo xareed maxaan ku xareed bakoolow inuu isku dilay suuqa bakaaraha xareed wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo runtii maxaan ku raahdaa dhalinyarada ku soo bartay Kenya wax kamid ahaa haddana muddo ku sugnaa magaalada Muqdisho gordowna la filaayeen maxaan ku raahdaa dib ugu laabto maadaama wadda uusan Muqdisho wax shaqo uusan ku hayn in dib loogu celiyo Kenya xaqana shaqo abuur looga sameeyay oo ahaa ma garatay wararka qaaran helay oo soo baxay maanta waxay sheegayeen in odaya Bakaaraha isku gowracay kana waxay noo sheegtay in uu dhalinyaro ahaa warkaasina way kala duwan yihiin walaal waxaan ku xaqiijinayaa horta xareed waxa weeyo xareed waa nin dhalinyaro oo ilmadeernay buu ahaa isaga waxa la yiraahdaa xareed bakoolow waa nin aan isku meel ku soo kornay khaasatan gobolka Gadood degmada Balad Xaawus oo ku dhashay ku soo koray kadibna saas Kenya wuxuu soo bartay aniguna waxaan ay eeladiisa macnaha maxaan ku raahdaa isaga u dhow aad ugu dhow aan hadda maanta magaalada Muqdisho aan ku suganahay waxaan xaqiijinayaa anigaas inuu oday ahayn daadiisu ay tahay 28 jir 30 jir sababtoo ay tahay xareed isku meel baan ku soo kornay hooyadiina waxa la yiraahdaa Ambiya Barre Xasan Qeyr baa la yiraahdaa isaguna waxa la yiraahdaa xareed bakoolow waa halkee meesha sida goonida oo yarkaasi markuu ugu horeysay isaga miyaa isgowracay mise waa la gowracay wallaahi horta niyahow ana shaqo ku jira warbixinta ay soo gaartay ninkaas oo meed inuu yaalo suuqa Bakaaraha khaasatan suuqa maacunta lagu gado markii aan iri maxaa ku dhacay ninkiisa isdilaal igu yiri sida awgeed marka wax dadka ama ehelada lama joogin ninkii inuu isaga isdilay iyo in la dilay anagu horta xaqiiqda hadda wuu isdilayna kuma oran karno waa la dilayna ma oran karno sababtoo tahay anagu goobta ma ku sugnayn laakiin markii aan soo qaadnay oo aan keenay saldhigga degmada Howlwadaag kadibna waxaan u sii gudbinay CID si maxaan ku raahdaa kiiska meesha ka dhacay hadii isagu isu geystay in loo geystayba loo ogaado waxa ay idinku soo wargeliyay marka dhacdadan ka dhacday suuqa Bakaaraha wallaahi waxaan ugu soo wargeliyay dadkii ganacsatada ahaa meesha area joogay dad kamid ah yaa waxay soo waceen ehelada waxayna ku dhaheen ninkii meeshaan buu yaalaa saas akhbaarku uu soo gaaray marka dad baan u diray dhalinyaro maxaan ku raahdaa urur dhalinyaro anagu ku leenahay meeshaan urur dhalinyaro kamid ah meesha tagay ragii baa qaaday kadibna u gudbiyay CID-da saasuna hadda CID ugu jira waa tahay goobta aad tilmaantay in aan la garanayn lagu gowracay asagu is gowracay wuxuu ka qabanayay ma booqasho u tagay mise meel uu ka howlgalay wallaahi horta niyahow warbixinta dad saan ku haynayba nin odaya oo meel kawaana ka shaqeeyo idaacadda sheegtay annagu xareed kawaan uu ka shaqeeyo kumaan ogeyn odayna ma ahayna waa saan hore kugu sheegayba nin dhalinyaro u ahaa hadda goobtaas waa ku tagayna qofku dan way qabsan kartaa meesha lagu tagi karaa anagu marka hadda saaka markii uu ama maxaan ku raahdaa xalay dan uu meesha aaday ama aan ogeyn laakiin markii uu dhibka dhacay baan lagu soo wargeliyay inuu xareed isagoo meeda yaalo suuqa maacunta kadibna markii aan dadka u dirnay isagoo gowracaan oo mudidii ag taalla oo isku gowracay ama lagu gowracay dirto ama isagaas gowrac ama lagu gowracay ay garab taalla loo tagay kadibna wax kale ma qaban karin dadkii meesha tagay waxay una awoodeen in goobta laga soo qaado oo kadib loo gudbiyo meelaha dambe baarista iyo sidii maxaan ku raahdaa meedkiisa uu lagu xabaari lahaa waa tahay wax tuuna ma jiraan oo laga qabay in oo dad ay dakana ay u qabeen ama ay waxyaabo kale ay jireen wallaahi horta niyow xaqiiqda markii aan ku sheego xareed maanta cid aad dakana uu ka qabay ama isaga dakana ku raadsanaysay ma ogeyn way dhici kartaa dhalinyaro inay isqabteen oo anagu aan war ka hayno suuqa ama isku qabteen marxalado kale oo sida ayada ay wax u jiraan laakiin anagu waxaan hadda ognahay oo ninkaas dakana oo lagu ceyrsanahay maanta ama maxaan ku raahdaa dakanahaas buu xareed wax u noqday ama lagu dilay aan oran karno ma jiraan walaalle sida xaqiiqda aan ku hayno laakiin haddii uu isaga isdilay hadii la dilay insha Allah waxaan ka warsugeynaa qolada dimbaarista wixii ka soo baxaan insha Allah hadii Ilaahay ku carqaybsanaynaa